وإن عن حدود آخرنا وإن عن سيد الصومالي اللي ugatagna dad aan la sheer garayn karna ma aha dad la joogi kara ma aha Soomaali la ilaalin kara ma aha wax qabyaaladu dilootay Puntland ayaa si cad u sheegtay inay ka go'ayso Soomaaliya sidoo kalena xiriir la sameynayso Shiinaha Indonesia iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi maxaa ka jira in xildhibaanada Puntland ay arintaasi qorsheynayaan inay meel mariyaan iyada oo waliba ilaa iyo hadda war rasmi ah Puntland ay ka soo saareen arimaha dastuurka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay ku eedeeyeen inuu doonayo inuu kala geeyo Soomaaliya maamul goboleedyo saddex ah iyadoo ay maqan yihiin dastuur la meel mariyo saddex kale oo aan markaasi muddo-xileed sharci ah haysanina iyagana ay taageeraan ay sheegeen inay tahay mid aan sharciga waafaqsaneen soo dhawaada saaxiibayaal wararka ugu dambeeyay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa umar guxayaan ahay hadii aad nagu cusub tahay nagu soo bir saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaaga markale soo dhawaada aynu ku bilownay Puntland iyo Jubaland iyadoo la wada og yahay in ay ka maqan yihiin ansixinta dastuurka la meelmariyay ee waliba 2026 maalinimadii shalay ahayd ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho si gaar ah Villa Hargeysa ayaa haddana waxa hadda soo baxaya qorshayaal kala duwan oo Puntland ay doonayso inay ku dhaqaaqdo xildhibaanad Monodiano oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland oo wareysi bixisay ayaa si cad u sheegtay in Puntland aysan qayb ka ahayn wax ka bedelka dastuurka waxaana dastuurkii la bedelay ee ku tilmaamtay warqad la iska qortay oo aysan jirin meel ay ka shaqeyn doonto xildhibaanadu waxa sidoo kale ay tilmaamtay in maamulka Puntland ay ka go'ayso Soomaaliya inteeda kale sidoo kalena xiriir ay la sameynayso wadamada Shiinaha Indonesia iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi arinta la yaabka leh ee ay xildhibaanadu ka hadashay ayaa arintaasi ah iyadoo waliba ay sheegtay in dhammaanba mucaaradka Puntland ka soo jeeda ee qaarkood jooga Garowe qaarkoodna Muqdisho jooga meel walba oo lagu arko dhiigooda la banaysto waa sida xildhibaanadu sheegtay sidoo kale waxa ay soo hadal qaaday in arinta la xiriirta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland wax shaqo ah oo ay isku leeyihiin aysan jirin waxa ay sheegtay in Somaliland horay loogu eedeeyay inay ku biirtay Yahuud ama ay raacday laakiin iyagu ay ka dareeyaan oo ay raacayaan Kim Jong Un ka maamula Kuuriyada Waqooyi sidoo kale Shiinaha iyo Indonesia iyo wadamo kale oo ay xildhibaanadu soo hadal qaaday si ay kaga go'aan Soomaaliya waxaana ay ku baaqday in Puntland ay xirto dhammaan xuduudaha ku yaala deegaanada ay la wadaagto ee Soomaalidu si hawada iyo sidoo kale dhinaca dhulkaba ay u ilaashato waxa sidoo kale xildhibaanadu ay tilmaamtay in dhiigooda la banaysto ragga ku sugan Muqdisho oo u garbinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ragga ku sugan dhinaca magaalada Garowe iyo deegaanada kale ee Puntland oo dhammaantood inta la soo qabto hal meel la isugu keeno kadibna qoorta la wada marsiyo mindida iyadoo arintan si la yaab leh ay uga falceliyeen bulshada ku dhaqan deegaanada kale ee Soomaalidu xildhibaanadu waxa ay sheegtay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud cuqdad gaar ah uu u qabo dadka ka soo jeeda deegaanada Puntland iyadoo oo waliba soo hadal qaaday arimaha la xiriira in wax walba oo ka dhaca gudaha Soomaaliya marka la gaaro 15 May sabab uu noqon doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka kaliya muddo-xileedkiisu ay ka harsan tahay 2 bilood laakiin amaniraadii 3 bilood wax ka yar sidoo kalena dastuurka shalay ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaar kamid ah xildhibaanadoodu ay dhalisay muddo kororsi gaaraya sanad iyo 5 bilood taas oo ka dhignaan doonta in madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka la gaaro 15 May ay u bilaaban doonto sanad cusub oo hor leh oo uu ku darsan doono taas oo aan la ogeyn sida ay suuragal ku noqon karto iyo sidoo kale cidda aqbali doonta mucaaradka Soomaaliya meel walba ay joogaan dhaqdhaqaaq ayay bilaabeen madaxweynihii dowladii ka horeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajana waxa uu tilmaamay kuna baaqay in si degdeg ah Villa Soomaaliya ay uga shaqeyso doorasho la aado oo waliba heshiis lagu yahay iyo sidoo kale dastuur la isla aqbalsan yahay oo kan hadda la saxiixay uusan ahayn kan lagu maamuli doono gudaha dalka iyo guud ahaanba caalamka waxaase Farmaajo uu soo hadal qaaday arintii la xiriirtay waliba diyaaradihii kala duwanaa ee hawada laga celiyay iyo kuwa kale oo dhowr ah oo tilmaamay isagana lagu eedeynayo shakhsiyaadka qaar ayuu tilmaamay in aysan ka warqabin siyaasadda Soomaaliya
kuwa qaarkood oo dowladda hadda ka tirsan ayaa la tilmaamay in aflagaado cad ay u geystaan madaxda maamul goboleedyada ka maqan saaxadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwa kale ee ku jirana ay ammaan la duldhacaan taas oo dowladnimada Soomaaliya iyo mas'uul Soomaaliyeed oo xil u haya bulsho Soomaaliyeedna ka fog waxaana sidoo kale la werinayaa in golihii wasiirada qaarkood kuwii lagu yaqiinay ee aflagaadada ama aflagaadeynta madaxda dalka soo martay ay bilaabeen hadaladii hore loogu aqoon jiray ah inay dhibaato markaasi dusha u saariyaan madaxda iyagu ka horeysay laakiin aysan fiirin dawladda iyagu ay ka tirsan yihiin dhibaatada ay shacabka u geysatay sida inay barakiciyaan dilka dhalinyarada dhaca iyo sidoo kale boobka dadka shacabka ah loo geysto ee waliba hantiyadooda qaybahooda kala duwan ay ku leeyihiin gudaha caasimadda iyo kuwa kale ee ka baxsan caasimadda ay dhibaatooyin xoogan kala kulmaan arrimahaasi oo idil oo isbiirsaday ayay Puntland xilligan qorsheysay inay guud ahaanba ka goosato Soomaaliya inteeda kale haddaba aan idin fasaxo hadalka xildhibaanad Muna Diyaano oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland iyo sida ay markaasi u hadashay nin kasta oo Puntland u dhashay oo ka soo horjeeda xildhibaan hadduu yahay iyo wasiir hadduu yahay iyo mucaarad hadduu yahay urunka waa in la gooyaa horena waa u iri reerku dooniyo beeshu doonaha ka dhasho Puntland masiirkeeda qofka ku tumanaya urunka waa in laga jaraa isagoo taagan xildhibaan Soomaaliyeed qora walba waa in ayada la isu diraa qora walbana ayada waa in la isu diraa waa in la soo hoyiyaa waxa ku dhex jira ummadda waa in laga qabtaa Puntland dad baa dhiig u cabay dad baa u dhintay dad baa qabuura u galay dhisitaankeedii in lagu dheeldheelona ma aha oo uu ku dheeldheelo jaahil mufsada oo shiribaab qaadanaya dastuurkan horta ma aha aayad quraana ma nansakh min aaya ilaahay yiri ma aha aayad quraana waa wax la qortay oo meel la dhigay ummadii qoratay oo isku raacdayna haday diido meel u geynayo aadan madoobe iyo xasan meel ay geynayaan ma jirto xagee la geynaa wuxuu yiri abwaankii dulaan yaxaasaan aqalkii ducsi iyo anadoodihiisii dareeniga ma gelin oo dibnaha qoslaya daacaduna ka mooday hadde waa asaga qoslayo afka kala haye xasan meeshuu ku dhaqi lahaa la rabaa dastuurkan ciduu ku xukumi lahaa la rabaa anaga yaqti xuduudaha inaan xirano waaye waa inaan xuduudaha xirano waa inaan sida Soomaaliland uga tagnaa dadaan la sheer garayn karna ma aha dad lala joogi kara ma aha Soomaaliland la ilaalin kara ma aha wax qabyaaladu dilootay oo qalbigu miriray miyay Puntland la joogaysaa burxadaan inaga inagu dhex jirto inaga ina sheeganaysana waa inaynu korka ka jiraa aniga hadalkaygu halkaas u taagan yahay shacabka Puntland iyo dawladooda iyo hay'adaha Puntland ka shaqeeya sida baarlamaanka golaha xukuumadda shacabka Puntland waxa horta ayaga dantooda waa inay raacaan qofka bini'aadanka ama qoonku dantiisa hadduusan raacin ee dan kale raaco isaga ku burbura dastuurkan Puntland haday shalay dawladda cagaha u dhigtay oo ay ayadu xamar geysay oo ay dajisay oo dadkeedii ku dhamaaday oo dhaqaalaheedii ku dhamaaday asi ay weyday Soomaalinimo danteeda inay raacato ayaa hadda u muhiim ah haddaan laba socon karin oo Soomaalinimadaada adigu goobaysa lagula goobayn oo qarankaad raadinaysa lagula raadinayn oo wadaniyada kugu beeran dad ku beeray nin dullaala oo shilin raadinaya iyo waxaan islaamku banayn oo corruption ku shaqaynaya lama sheer garayn karo dawladna lama noqon karo Puntland iyo shacabkeeda horta isku duubni baan u rajaynaya inay isku duumaan waxa weeyaan waxa lagu leeyahay mucaaradka Puntland ma necba Siciidani baa waxa weeyaan Siciidani buuga markii labada baal oo ugu quruxda badan oo ugu koreeyo laga jaro wax kasta oo dhaftiya waa ku dhacayaan Siciidani waa shaatigii Puntland weeyaan waa xildhibaanad Muna Diyaano oo Puntland golaheeda wakiilada ka tirsan aragtida qaybta hoose ee faallada Puntland ma ku saxan tahay inay ka goosato Soomaaliya mase ku biiri kartaa wadamada hadda dastuurka uu sheegayo inaysan xiriir caalami ah ama caalami ah aysan ka soo qaadan karin wadamada kale haddii Kim Jong Un ay Puntland markaasi uu ka aqbalo maxaa Soomaaliya u xal ahaan doona oo Puntland si gaar ah u taageero sida Israa'iilba ay gooni ula goosatay Somaliland
qaybta hoose ee falada aragtidiina nagula wadaaga haddii aad ilaa dhamaatana la soo gaarteen oo nagu soo biir saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faladana aragtidiina